tartankii loogu magac daray amniga caasimadda Garowe ay ku tirsamayeen 24 kooxood ee kooxaha Serobiida ayaa mar kale waxaa saftay labada kooxood ee ku kala ciyaaraya magaca kooxda warshadaha iyo magaca kooxda TV-ga SBS waxaana ciyaartu kolka ay bilaabatay ahayd mid xamaasad leh berbalowgii ciyaarta markay bilaabatay waxa labada kooxood bay ahaayeen kuwa ku dadaalaya sidii mid kastaba uu ka kale uga soo hoyn lahaa natiijada ciyaarta haafkii hore ee ciyaarta ma suurtagelin in labadan kooxoodba ay garoonka ku kala nastaan guulooyin haddaba labadan coach ee kala hogaaminaya labadan kooxood ayaa ugu horeynba ka warbixiyay sidoo mid kastaba uu rajaynayo gool uu kala baxo garoonka insha Allah waa mideeda kale waxaan sheegayaa in aan maanta ku soo talagalnay gool aad iyo aad waxaan rajaynayaa maanta inaan gool gaaro anoo ku ciyaaraya magaca TV-ga SBS ay naga saacideeyeen qalabka iyo dhammaan agabaha sportska coachka kooxda warshadaha B in aad baan maanta ugu faraxsanahay inaan horta dheelno kulankeena ugu horeeyay ee koobka aad baan ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha sidoo kale kulanka maanta waa kulanka ugu horeeyay weeye insha Allah half-time wuxuu ku dhacay ever waxaan jeclaan lahaa halfka dambe inaan ciyaarta wax ka bedelno dana macalinka warshadaha dhankooda kabtanada labadan kooxood ayaa TV-ga SBS mid kastaba dareenkiisa ka weydiiyay natiijada ciyaartan waxa uu filayo 90 daqiiqo ciyaartu socoto geemkana waxaan rajaynayaa awood ka fiican in aan ku badi doono insha Allah hadii Ilaahay idmo waana isoo wax badan alimita badan training badan waa soo qaanay waxyaalo badan waa soo sameeyno oo hore aan u sameeyeen macallimiin badan waa soo aragnay marka insha Allah maanta waxaan rajaynayaa guushii aan shalay aan gaarnay mid ka fiican rajaynayaa taraamiya SBS TV magacaygu Cabdi Ashkuro Ali waxaan ahay kabtanka kooxda warshadaha waxaan xaqan uga mahad celinayaa dhammaan cidii ka qayb qaadatay in la qabto ama uu hirgalo koobka heerka labaad ee magaalada Garowe hadda waxaan noo socota ama aan ku guda jirnaa ciyaartii warshadaha iyo dhaxaysay SBS TV ciyaarta halkeeda hore wuxuu ku soo gabagaboobay eber waxa u laabanaa qaybta labaad ee ciyaarta waxaana filaynaa ama aan jecelnahay in aan la imaano natiijada ciyaartan wax ka bedelno aan qaadano 3 marks إن شاء الله قولي قبل ما أرجينيا وما تتيني كناس بس تيفي. gabagabadina macallin Maxamed Cabdulle Aadan gudoomiyaha tartanka heerka labaad ayaa TV-ga SBS uga mahadceliyay garab istaaga tartanka intuu socday kana warbixiyay faa'iidada koobkan waxaan uga mahadcelinayaa guud ahaan shaqaalaha SBS oo runtii qayb libaaxa ka qaata barnaamijkan tabintiisa iyo duubistiisaba iyo dhiirigelinta dhalinyarada haddana anu iska waramo magacaygu waa macallin Maxamed Cabdulle Aadan waxaan ahay gudoomiyaha tartankan heerka labaad uu igu weheliyo saaxiibkayga qaaliga macallin Bashiir oo isaguna ah gudoomiye ku xigeenka runtii aad buu socdaa tartankan waxaana ka qayb galay 24 kooxood waxa loo qaybiyay 8 qaybood kulankan maanta waxa weeye waa kulankii labaad bay ciyaarayaan SBS kulankii hore waa soo badiyeen kulankan waa kulankii labaad wixii ay kala kulmaan iyo natiijadooduna wuxuu ka ekaanayaa warshadaha iyo qolada kale ay hormuud ay wada ciyaaraan Siciid Xasan Cabdi gudoomiyaha dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Nugaal ayaa ka warbixiyay wareegga labaad ee koobkan iyo sida loo soo kala baxay galabta waxa ciyaaraysa kooxdii SBS TV iyo warshadaha waana wareegii labaad baa bilowday oo koox kasta hadda gruubada ayaa laga baxayaa kooxda SBS baa hadda waxay ku hogaamisay Levi Ever oo galabta sidaas ay group stage uga gudubtay waxay u gudubtay 16 kooxood ee kuma dambaysta ee quarter finalkii u gudbaysa haduu alla idmo tartankan waa tartan wanaagsan si qurux badan buu socdaa oo habsami u socod leh waan uga mahadcelinaynaa TV-ga howl iyo haaga naga tala taagan SBS TV barnaamijka arrimaha bulshada sportskana kaalin weyn ka qaata gari laba nin kama wada qoslisay waxay daqiiqadu markay ahayd 78 uu goolkii u horeeyay u xaqiijiyay ciyaaryahanka ku ciyaariyay lambar 9 ee kooxda SBS oo halkaasi gool u horseeday u keenay guushu isma qarisay waxa bar kale ay shabaqa taabsiin xidigihii SBS goolkoodii labaad oo hanjabinaya kooxdii halkaasi kula barbartamaysay kooxda SBS intaasi kadib waxa hambaliyo iyo duco guusha saldhigu ah ay ku huuyeen kooxda SBS kooxdii laga badiyay ee warshadaha qurux badan bay noogu soo dhamaatay aad baan u mahadcelinayaa kooxda SBS TV runtii qurux badan bay soo bandhigeen وانا وهم بدينا إن شاء الله قبل ما نكمل قصة كلهم كلام نهار مرتين أنا صوب حدنا إن شاء الله ما عيارتنا اللي كبدي إن شاء الله جيم كحيان سألنا دلنا صاحبنا حبرتنا يقول أنت كبدينا سيجارا gabagabadina waxaa dareenkooda farxadeed ka sheekeeyay kooxda SBS guul waxaana ku badiyay Levi Ever maadaama aan markii hore waxaan jeclahay inaan maanta goolo badan gaaro insha Allah kooxdeedii oo dhan waa kuwan Daawud baan ku wareejiyay aad buu mahadsan yahay macalinka kooxda Cabdi iyo balaayarintii aan la soo wada ciyaaranay waxaan ku badinay 2 gool oo aan u maleynaayo inay noo ahayd qandaraas waayadan dambe
waana ku mahadsantihiin ciyaar qurux badan baan ka dhashay waana ku mahadsanyihiin dhammaan inta goorta garoonka la dheelayay Khalid بسم الله الرحمن الرحيم markood waxaan mahad gaar u jeedinayaa TV-gana maal gelinaya waxaan leeyahay hawsha ku jirta waa hawl fiican sawsi wada ciyaarna magaca SBS waxaan leenahay guuliyo gobonimo koobku wuxuu imaan doonaa insha Allah xafiiska SBS TV marka ugu horeysa waxaan u mahad celinayaa dhammaan TV-ga SBS shaqaalihiisa iyo inta xaafadayada ahba ru'aantii de maanta guul baa gaarnay maanta dhaweyna guul baa gaarnay koobka guul buu wada nagu socdaa naadiga SBS guul ayaamaha guul baa caado ah insha Allah waxaan ka rajeynayaa saaxiibaday guusha ay maanta gaareen ka fiican inay gaari doonaan saasna ay ku wadaan guusha SBS insha Allah guusha waan sii wadi doonaa inta in ka filan ba in ka badan ba filaynaa insha Allah waxaana kooxda SBS sidaasi u gudubtay 16 kooxood ee quarter finalka ah waana ciyaartii labaad ay garoonka guul kala baxaan barbaarta SBS Maxamed Ahmed Jaamac Maxamed Bidaanshe telefishinka caalamiga ee SBS Garowe